waxaan rabaa inaan doodayda ku saabsan dastuurka wax ka beddelkeeda dhammaystirka dastuurka inaan toos u galo inkastoo aan isleeyahay xildhibaanadu maanta ma kuraasta u qodbaynaa qodobka 63aad qodobka 63aad qodobka 63aad ee dastuurka ka hadlaya waxaan rabaa 3 qodob inaan taabto ama 4 qodob baan dhaho oo qodobka 63aad ee maqaamka caasimadda ah iyo qodobka 7aad ee ka hadlaya awoodaha dowladda goboleedyada awoodaha dowladda dhexe iyo qodobka 71aad ee wadaagga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo qodobka 72aad ee ka hadlaya dhismaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka qodobka 63aad waxaan leeyahay maqaamka caasimadda waxaa loo soo qoray 2 taasoo kale ah inuu noqdo caasimad la mida dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee maqaamkeeda iyo matalaadeeda iyo nidaamkeeda ay u gaar yihiin waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo oo aan taageero in magaalo madaxda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho inay yeelato maqaam iyo matalaad iyada u gaara inay ka mid noqoto ama ay ku xuquuq ay noqoto dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maxaa yeelay magaalo madaxda caasimadda inay iyadu yeelato amnigeedana ay sugato haddaba amnigeeda iyadaa sugataa laakiin waxaa saara culayska dowladda dhexe iyadoo culayska dowladda dhexe uu saaran yahay oo dowladda dhexe ay kala siman tahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayay noqon kartaa magaalo madax bannaan oo madaxdeeda iyo golayaasheeda iyo golaheeda deegaanka golaheeda wakiilada iyo madaxweyne ama hogaamiye sidii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay yeelato maxaa yeelay waxaan garan karnaa magaaladan caasimadda ah culayska ugu badan ee haysto wuxuu yahay in mar kasta loo xeerinayo ama la hoosgeynayo ama lagu eedeynayo dowladda dhexe waxaan rabnaa dowladda dhexe awoodaheeda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo guud ahaan dalkoo dhan inay kala mid noqoto magaaladana ay noqoto magaalo madax bannaan waxaan rabaa qodobka 7aad jadwalkiisa AB wuxuu qeexaa awoodda dowladda federaalka waxay leedahay 43 jabtar oo awooda u qoran waxaan isleeyahay awooddaas awood ka dheeriya ay caasimadda gooni u xukunto uma baahna dowladda dhexe waxaan marka aniga aragtidaydu ay tahay in dowladda dhexe ay kala mid noqoto caasimadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sidoo kale waxaa meesha ku jirta iyadana qodobka 71aad awoodaha wadaagga ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ay wadaagaan anigu waxaan soo jeedinaa ka xildhibaan ahaan in magaalo madaxda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ay la wadaagto dowlad goboleedyadaas aysan ku gaar noqon marka la dhaleecaynayo magaalada caasimadda waxaa la yiraahdaa Filow Digley waxaan rabnaa in Filow Digley loo asteeyo Muqdishona ay noqoto magaalo madax bannaan oo maqaam iyo matalaad u gaar leh intaa kadib xildhibaano saaxiibadaya waxay ka dhawaajiyeen hal la warwareejiyo caasimadda haddii magaalo qaadi karta populationka ama culayska dowladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed ee kalamaanka ah magaalo qaadi karta magaalooyinka Soomaaliyeed kamid ah haddii la helayo waxaan ku diidaynaa xildhibaano meeshaan ka doodayay magaalo madaxda dowlad goboleedyada gaarka ah ama constituency-gooda haddaysan tegi karin ayadoo dowlad goboleeda oo caasimadii dowlad goboleedka ah haddana waxay ku doodayaan caasimadii hala geeyo ma qof caasimadan Muqdisho inuu yimaado laga hor istaagi karaa jirta waa maya
waxaan rabnaa caasimadda in laga daayo jisaarka qof walba oo Soomaaliya ayay waajib ku tahay inay magaaladan maqaamkeeda iyo madalaadeeda inay u doodo culayska haysta magaalada caasimadda iyo shacabka Soomaaliyeed caasimadda degan culayska haysta qof kastoo xildhibaana anigana idinla hadlayo deegaan doorashadeyda ama constituency-gayga aan ka soo jeedo waa Galmudug magaaladayda oo constituency-gayga waa Ceeldheer waxay hoos tagtaa Dhuusamareeb haddana sida aan Dhuusamareeb iyo Ceeldheer ay waajib igu tahay inaan ugu doodo ayay waajib igu tahay inaan ugu doodo magaalada caasimadda sidoo kale qodobka 72 dowlad goboleedyada waxaa la yidhi 2 gobol iyo wixii ka badan 3 gobol iyo wixii ka badan aniga waxaan qabaa in loo daayo taas shacabka Soomaaliyeed maadaama la yidhi awoodda ha loo celiyo shacabka sida ay isu raacayaan tirada ay isu raacayaan sidii dastuurka hore oo u qeexayay in degmadu ay yeelato dadkeeda shacabka degmada aniga aan ka soo jeedo degan haddii ay soo jeediyaan inaysan ka mid ahaa karin dowlad goboleedkaas waa ku qasbantiin ma leeyahay waa maya aniga waxaan qabaa dadku inay madax bannaanaadaan oo awoodda sida aan ugu doodayno in awoodda loo celiyo shacabka Soomaaliyeed in la yiraahdo 2 gobol iyo wixii ka badan laakiin aan 3 gobol la dhihin 4 gobol la dhihin 5 gobol la dhihin in option la siiyo dadku inay israacraaci karaan waxaa la socotaan hadda haddii uu yiraahdo gobol ka mid ah maamul goboleedyada dowladaha xubnaha dowladda federaalka waa ka baxay dowladda dhexe gobollada kalena ma ku qasban yihiin inay ku raacaan waa maya degmooyinku ma ku qasban yihiin hadda fursada la haystaa inaan lagu qasbin ee shacabka Soomaaliyeed la madax banneeyo meeshay rabaan inay raacaan si dastuuriya ee soo jeedaha waxaan ku soo noqonaa marka oo ku celcelinaa maqaamka iyo madalaadda caasimaddu waa inay madax bannaanaataa waa inay gobollada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah inay la mid noqoto dowladda dhexana waa inay ula sinaataa waa loo astay karaa magaalo u gaara ee dowladdu ay degan tahay laakiin dowladdu dalka oo dhan bay maamushaa muqdisho kaliya ma maamusho. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.